waxaan leeyahay hambalyo saaxiib hambalyo ayaan idin leeyahay aad iyo aad baan waan idin hambalyeynaya marka koowaad waxaan rabaa inaan hambalyo iyo bogaadin ba u diro qoyska cusub guurkiina guur khayr isku nagaada waxaan leenahay hambalyo marka insha Allah waxaan ku leenahay hambalyo waxaan leeyahay hambalyo saaxiib hambalyo waxaan ku leeyahay hambalyo maxaan ku iraahdaa hambalyo labadaba Washington waa siinay hambalyo leeyahay waxaan halkan hambalyo aroos uga dirayaa walaalkay Cabdiqaadir Washington iyo marwadiisa Sawda hambalyo ayaan leeyahay weligiin wada farxaan leeyahay مدن اللي يمادوا ومدرسة وشرف بدن runtii rag aan ma taqaana kuwaana qaadanayna waa joogan oo maagtaas ka soo taagan maxaafadna ka soo qoraacataan hadaad macnaha aydan ku dayanayn wax oo tusaale rag ma carab baabayo halkan waxa uga hambalyeynaya Cabdiqaadir Yaasiin Washington waa awowgi naas baa qabi jiray iyo dumaashideen Sawda Axmed Sayid waxaan leeyahay hambalyo reerkii lagu nasto oo lagu nagaado wada jiray nabad kala waa leeyahay إلهي أولاد خير قبطان الكلاسيو aad baan ugu faraxsanahay runtii Washington waa saaxiibkay ilaa maanta bataqana xafladiisa joogo hadda ka hor sheego waxa ka sheekaya ninka geerida aabihii luubay ninka doobka ahaa oo is ilaaliya insha Allah kuma sii dheeraanayo waxa leeyahay saaxiibkay hambalyo adiga dumasho isku walaalahay bataqana aad baa mahadsantiin arooskii wardheele loo wada mushxaradeeye wanaag loogu sacabatumay wayna idinka barinaye aroos wacan oo wanaagsan wayna idinka barinaye laba jacayl wadaago wadna haysisiyo kalgacayl isweheshada wayna idinka barinaye nolol wacan oo wanaagsan wayna idinka barinaye amiin raaciye runtii xafladan uu noo qabtay saaxiibkeen Washington aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galay meherka saaxiibkay Cabdiqaadir Washington iyo dumaashi Sawda Axmed Sayid saaxiib hambalyo ayaan idin leeyahay asagana si gaar ah ayaan ugu simaad celinayna maadaama meherkii uu ka dhacay Hargeysa laakiin uu go'aansaday inuu dhalinyaradiisa asxaabtiisa oo halkan munaasabad ugu sameeyo waa kaaga mahad celinayna saaxiib Cabdiqaadir waxa uu ka mid yahay dhalinyarada aadka u firfircoon ee ka hawlgasha magaalada Gaalkacyo waxyaabaha uu qabtayna waa waxyaabo runtii dadka dhan u muuqda Soomaalidana waxa la yiraahdaa qofka markuu dadaal badan sameeyo wax qabanayo ma arkaan laakiin markuu ama ka fogaado ama uu geeriyoodo unbay xusaan marka waan rajaynayaa sida maartay uu noo maamusay oo kale in anaguna u maamusi doono maadaama uu yahay nin wax badan magaalada u qabtay Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jimco wanaagsan Cabdiqaadir Washington iyo dumaashiday Sawda aad baan waan idin hambalyeynaya waxaan idin leenahay wiil iyo caano gabar iyo caano reer lagu nasto lagu nagaado ilaahay ha ka dhigo asxaabta kale oo aan wali bismillaah orana ayagana waxaan leenahay Allah idin fududeeyo ragga kale oo halka iyo u baahan labada iyo saddexda iyo afartan waxaan leenahay aniguna ducadan ku darayaa waxaan leeyahay
idinkuna baska ha ka haranina waxa weeye hore u sii wada hawsha oday reer Mudug waxa la yiraahdaa hadda ka hor aroos duce markaas wuxuu yiri waxaan ugu ducaynayaa reerka iyo qoyska in Ilaahay ka dhigo gabadha mid caloosha ku sida mar ay caloosha ku siday mar ay gacanta haysa iyo mar ay dhabarka ku sido iyo mar ay nuujinaysa Allah ka dhigo marka anaguna intii oo kale aan leeyahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo runtii saaxiibkay farxad gooni ay tahay inaan asaaska iyo arooska reerkiisa aan ka soo qayb galo asxaabta kalena waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka koowaad waxaan rabaa inaan hambaliyo iyo bogaadinba u diro qoyska cusub ee saaxiibkay Washington iyo Marwo Sawdo waxaan leeyahay qoyska Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka dhigo kii barakooba awlaad saalixaan Ilaahay kala siiyo bismillahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh markood Ilaahay baa mahad iska leh marka labaad waxaan hambali u jeedinayaa saaxiibkay walaalkay samafale Cabdiqaadir Yaasiin Washington iyo Dumaashi Sawdo Axmed Seed waxaan leeyahay guurkiina guur khayr isku nagaada maalmo badan iyo habeeno badan waxaan idin rajeynayaa qosol qaylo badan maanta waxaa qaaday mas'uuliyad aad u weyn Washington dhalinyaradu waa ku dhiirigelinayaan inay guursadaan wali waxaan leeyahay dhalinyaradu waayaan guurku soo batay laakiin xasilooni guur baa loo baahan yahay dumarkaas guryahooda ka soo saarteen inaa u sabirtaan inaa u dulqaadataan inaa fiidka u tagtaan wallaca markay tahay oo adkaysataan habeenada kulul ama aragta dulqaad muujisaan dhammaantiin waxaan idin leeyahay khayr iyo farxad ku waara inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun halkaan waxaan tacsi uga dirayaa dhammaan raggii iskaabuladaha oo ka baxay walaalkeen intaas kadib waa iska kaftar raalla ahaada waxaan aad iyo aad ugu hambaliyanayaa saaxiibka Washington marka Washington waxa la saaxiib hambalyo raggii hore dhameeyay waxaan halkan iskugu nimidna waa intaas inaan farxadda kula qaadan oo kula qaybsano sida uu ragga horeba ay sheegeen guurka waayahan dambe waa la sameeyaa laakiin fakadkiisa fara badan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka rajeynaynaa inuu reerka ka dhigo reer nagi waxa ay iska raadinayaan wax ka wanaagsan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo ku irsaaqo أنا مقعيق والدنا عبد الخير وكفر حسنا مانت إنا إماضو وواروس كوجو ريان كسوق يبقلوا نلش شيء دملا رأي أروس مئه الدرا الحمد لله مانت إنا ولا الكمير كسوجوجو ولما دل كمرك كسول لابد كتب after 4 years إنا مانت إمد عدو قادر واشتون وبس تفرنا هاي مهر كيسي أروس كيسي تاسو الحمد لله أورن كرا أبو أنا كهذا afka gabdhaha oo aan ka haysto permission waxaan ku leenahay reerkii lagu nagaado Allah ka dhiga reerkaada insha Allah de dardaaranka waxa la qaar waxa jira isku siinin xogaa expert marka tagsto waxa jira kuwa aan isku siinin de direct marka taa in direct way noqonaysaa oo de reerka iyo garanaysaa marka insha Allah waxaan ku leenahay hambalyo reerkii lagu nasto Allah ka dhigo mid kale aad waxaan ugu faraxsanahay inuu yahay wiilka kaliya oo casuumay gabdho anu wili ma arag xalawaan weydiyo as telephone waxa ugu iraado war guys what's going on maxaa socda because weligay ma arkin wiil oo gabdho casuumay marka abow taasna waa kugu absheed gareynayna aad iyo aad kugu mahadcelinaynaa insha Allah waxa ku soo gabagabeynayaa maadaama hadalkii muhiimadiisa hore loo yiri insha Allah reerkaaga reer khayr qabaalaha ka dhigo waxaan rajeynayaa in idinkoo isku agaboobo 90 years ama 80 years isku jira inuu Ilaahay nabad isku ayso aad iyo aad baa u mahadsantiin inta dhagahooda igu dhageystay salaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatuh mar labaad waxaan leeyahay caruuska iyo caruusada waxaan leeyahay hambalyo saaxiib hambalyo walaalkeen saaxiibkeen wariyaheenii samafalaheennii Cabdiqaadir Yaasiin Washington iyo Dumaashi Sawdo Axmed waxaan leeyahay hambalyo Allah isku kaan barakeeyo gurigiina gurinag guri khayr waxaan leeyahay gacal iyo sokeeyo gurkiina lagu farax waxaan yiri waa aroos milgale waa mideyn galgacal waa madal qurxoon mudday soo wadeen mahuraanadii isa soo hantiyay
guulow allow gurbood wiilal iyo guud daban gabdhaba gurigooda yeel guulow allow guri lagu farxo tolku heshadaan guulow allow garabkooda qabo guulow allow gurigooda khayr bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilah tuma salaatu wasalaamu calaa rasuulillah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan mas-uuliyiinta sharafta leh xafladan qiimaha badan kasoo qayb galay waa salaamantihiin salaan kadib meeshan hadal badan ma lehe waxaan halkan u nimid waa hambalyada iyo bogaadinta iyo inaan ducada la garab istaagno walaalkeen cabdulqaadir yaasiin iyo walaasheen sawde axmed oo saakay meherkeedu halkan ka dhacay waxaan leenahay hambalyo hambalyo waxaan kugu ducaynaynaa wuxuu nebigu ugu ducayn jiray sala allahu calayhi wasalam markii reer cusub sidaan oo kale loo asaaso baaraka allahu lakumaa wabaaraka calaykumaa wajamaca baynakumaa bikhayrin ilaahay ha idin barakeeyo ha sunankiin barakeeyo dhexdeedinana khayr iyo wanaag ilaahay ha ku kulmiya ayaan idin leenahay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamay guurka iyo nicmada iyo barwaaqada uu leeyahay ilaahay mucjisooyinkiisa waaweyn waxaa ka mid ah ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها إلهي وحو يري آياتها إلهي وحا كمد إنه نفتيني كغا أبوري حاسك مركوا اسكا غورسدي hawshu ma ahana waa in xasilooni iyo deganaan iyo jacayl iyo mawado ay dhex marta litaskunu ilayha bilaaya marka kaliga ahayd oo aad kaliga sarir seexan jirtay oo aad boorin badan iyo caajis dareemi jirtay waa wax badan walweli jirtay marka reer heshida waa in xasilooni iyo deganaan iyo saaxiib ku dhow heshay waja'ala baynakum mawaddatan wa rahma dhexdeennana kalgacayl iyo raxmad iyo naxariis ayuu ilaahay idin dhexda ugu yiri waxaan rajaynaynaa reer kale inuu noqdo reer xasilooni iyo deganaan iyo kalgacal uu dhex maro ilaahay subxaanahu wa tacaala ubad khayr qaba inuu kala siiyo mar kale hambalyo ayaan leeyahay waxaan u duco iyo maxaan ku idhahdaa hambalyaba labadaba Washington waa siinay uu nala shaqeeyay uu garab taagnaa aad soo dhawo Washington waxaana ka soo beel adag baan ka soo baxay laakiin wili raga ku jira aad iyo aad ma santiin